Waxaa maanta si rasmi ah u furmay horyaalka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya waxaana lagu daahfuray kooxaha Hagen iyo sidoo kale kooxda Somali Fruit. Kulanka furitaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiinta xiriirka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya iyo sidoo kale marti sharaf aad u badan oo lagu casuumay kulankan iyo daawadayaal aad u fara badan. Labada kooxood ee lagu daahfuray Hagen iyo sidoo kale kooxda Somali Fruit ee horyaalka kubadda kolayga sanadka 2024-2025 ayaa si rasmi ah loo daahfuray, waxaana inta badan labada kooxoodba ay ku soo shartageen isku diyaarin iyo sidoo kale mid inay markaasi koox walba u guuleystaan. Kulanka furitaanka ayaa si rasmi ah waxaa guul taariikhi ah ee ka gaartay kooxda horyaalka difaacanaysa ee Hagen, waxa ay ku adkaatay 59. Sidoo kale kooxda laga adkaaday ee markaasi Somali Fruit ayaa waxa ay la timid 13 iskoor, waana kulan aad markaasi u weyn marka laga eego labada kooxood ciyaaraha ay markaasi soo bandhigeen, iyagoona doonaya in markaasi si dardar xoogan ay u soo galaan tartankan. Ayaa kulankiisii koowaad iyo wareegiisii koowaad markaasi laga ciyaaray. Haddii aan eegno ciyaaraha kale ee dalkeena, waxaa kulan saaxiibtinimo markaasi wada ciyaaray labada degmo ee hoostaga maamulka Hirshabelle, gaar ahaan Shabeellaha Dhexe, waxaana kulan saaxiibtinimo ciyaaray labada degmo ee degmada Mirtaqwe iyo degmada Biyo-Cadde. Kulanka ayaa waxa uu ka dhacay degmada Biyo-Cadde, waana kulan isdhexgal ah oo markaasi lagu golxaarayo si markaasi loo horumariyo isboortiga dalka. Sidoo kale dhawaan ayaa waxa uu ka bilaaban doonaa tartanka degmooyinka ee markaasi maamulka Hirshabelle, waxaana tartankan xiiso badan ayuu yeelan doonaa. Labada kooxood ayaa weli ku guda jira diyaar garow xoogan ay isku diyaarinayaan kulankan labada kooxood ee ciyaareen degmada Biyo-Cadde iyo sidoo kale degmada Mirtaqwe ayaa markaasi ah kulan ciyaareed saaxiibtinimo, waxaana ciyaartaasi ku soo idlaatay gool la'aan oo markaasi eber ay ku soo idlaatay. Kulanka labaad ayaa isna dhawaan lagu ciyaari doonaa degmada markaasi Mirtaqwe oo ay markaasi martigelin doonto degmada Biyo-Cadde, oo marka kulanka maanta ay ciyaareen waxa uu noqon doonaa kulamo joogto ah inta uu ka bilaabanayo tartamada kala duwan ee markaasi degmooyinka gobolkaasi laga ciyaaro.